Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalay waa idin salaam meel kasta aad joogtiin maanta waxaa suubinaynaa suugo laga yaabo suugo faraha laysku jaraayo yaa maasha allah waa kan maasha waxaa noo yaalo basal 4 xabo basal ah yaanyada intaas inta cadada aa rabto basasha waa ka yareysan kartaa aniga big family ahay family weyn marka wax badanaa u baahanahay kabsartii toontii barbaroonigii inta waxaa ii yaalo yaanyadii oo shishiida adkeed dhalada waxaa iigu jiro pesto qal iyo saliida olive oilkii aan ku suubin lahaa insha allah intana cusbadii iyo xawaajiga isku dardarkii paprikihii iyo cusbadii inta iigu jirto insha allah waa soo bilaabaneynaa hadduu alle idmo waa soo jarjaraa waxa dhan yaanyadan kaasaa kusii shiidi doonaa insha allah haddaan bilaabeynaa saliid digsigaanaytan aada u fiican yahay digsigan waxaa waaye digsi dheer wuxuu kaa caawinayaa inaysan suugada zaa'id banaanka ugu firfirdhoonin way firfirdhanaysaa laakiin markaad digsiga gaaban ku suubinayso kistoo wuu ka sahlan yahay wuuna adag yahay haddaan bilaabaneynaa insha allah saliidii aan kusoo shubanaynaa saliidda waxaan ku suubinayaa olive oil markaa ku suubinayana kastoo yar wax yar fiican aa lagu daraa saliid waxaa la rabaa inay suugada soo tufto suugada saliidda hadday ku yartay suugo qurxoon ma soo baxayso marka saliidda saasaa ugu shubanaysaa hadduu alle idmo saliidda iyadoo qabow markastana waa kusoo celiyaa saliid olive oil markaa ku karsanaya cuntada saliid zaytuunka iyadoo qabow aan ku shubayaa basashii insha allah basashaaneyta waa la walaaqaa wax yar waa la daboolaa markii la daboolo iyadoo gaduudataa haddana dib loo furaaya waqtii qaadanaysaa adiga ilaa 10 daqiiqo dabkaaga iyo digsiga wax markasta ku karsanaysay ku xiran tahay suugo haddaa rabti suugadan waxay qaadan doontaa ugu yaraan 2 saacadood waa kariskeeda 1 saac iyo bar 2 saac 2 saac iyo xoogo suugada inay karto maasha allah waa ka basashii noo soo gaduudata caraf soo carfayo waa yaabaysaa maasha allah isku soo dhacday basasha markay saan sanuunadeeda soo baxdo ee raashinka macaan ka dhigtaa haddana waxaan ku shubanaynaa yaanyadii oo noo soo shiidan maasha allah waa ka inta kusoo shiidanay waxaa waaye alaabtaaneyto wax badanay karaysaa 2 koob biyaan ku darayaa laakiin qaar ka mid ah yaanyadii qalaadadii aan ku shiidaa kusoo dhaqaayaa maasha allah tabaaraka allah alaabtan wax yar lay sugisay kusoo baxayso idinka iska aragto biyo inta dhanneedna waan ku darayaa waxaan rabaa yaanyada inay karto si fiican u karto alaabtan waxaa loogu talagalay gabdhaha wiilasha mashquulka ah shaqeeyo ilmo ka daba ordaayo baasadan talaajada haddaa gashatid waxaan ku dhahay bil 2 bil way kugu jira iyadoo sideeda iska bedelin maasha allah haddana waa soo noqonay waa kaas adiga 20 daqiiqo ku dhawaad markii karaysi yaanyadii iyo biyihii iyo basashii iyo saliidii isku karayaan saasay kusoo baxday maasha allah tabaaraka allah howsha hadday bilaabanaysaa basashaasayt saas dhan waxaa la rabaa inay isku tiranto ee isku noqoto maasha allah tabaaraka allah waxaan la arkin la maqlin innaba caadi ma aha haddana waxaan sameynaynaa wax yar biyo kalaan ku darsanaynaa siday zaa'id isugu sii dhacdo maxaa yeelay marka haddii aad u qalasho waxaa la rabaa ma la rabo waxaa la rabaa markasta inay karto karitaanka loogu dadaalo dabka haayaa loo geeye wax yar ka bacdina markay si fiican soo dhawaato waxaa suubinaysaa haddana cusbadii iyo paprikihii iyo xawaajigii aan ku darsaday maasha allah tabaaraka allah indhihiisku deeqaa aragtidiisku deeqdaa waxaa la dhahay oonkiisku deeqaa maasha allah alaabtan isku soo guduudane innaba caadi ma aha way kari walaaq isdhexgeli leh markasta muhiimadda waxaa waaye markaa wax ku dartid inaad si fiican isku dhexgelisid wax inaysan kaaga kuukuusanin oo bahalkeenin hadda waa daboolanaynaa waa soo noqone beestogaanaan ku daraynaa beestogaanayta anaa suubiyo cagaarkaas iskama bedelaya hadda beestahaaseyto almost wuxuu ii yaalaa bil ii ka badan
beerteydii ma xasuusatiin balakoonka gabdhaha snapchatka igala socda balakoonka beerta aan ku abuurtay riixaantii iyo baasligii iyo adduunka isku shiida waa saasay weli u cagaaran tahay haddana oktoobaraa la maraayaa dhammaadkeeda maasha allah waa idin tusin doonaa waa idinla sheergarayn doonaa mar kale kabsar idinkama halaabi doonto oo maasha allah haddana waxaan ku darsanaynaa yaanshiida waxaa waaye marka ani ku daro iida zaa'id ma u walaaqi waan saaraa saasa u dhex dhigaa waa ku daboolaa markaasay iida le dhiimayso hadhow sas la u walaaqay maluluq ay noqonaysaa yaanyada hadda saana kasoo yar cadaan cadaan u tahay hadda markaad dabool ka qaada fiiri waan yaanshiida iida le isku tirantay maasha allah suugo haddaysan saan kaa ahayn saliidda saas usoo tufin suugo ma aha suugo iyo biyo isdabarooreysa weligaane haddaa rabtid inay suugadaada wax badan kuu taalo hilibka ha ku karinin chikinka doorada digaaga wadbasaa u taqaana ha ku karinin malaay ha ku dhex karinin maxaa yeelay haddana qalkiaan ku daleynaa qalkaanaytan wuxuu ka caawinayaa cuntada inaysan bedelkeeda isbedelin qal wixii lagu kariyo badanaa isma bedelaan maasha allah suugada weli karisaa u dhiman karis waa la karinaa maasha allah tabaaraka allah waxaa la rabaa suuga basal taagtaagan iyo wax taagtaagan haddana beestoga ku darsanaynaa waxaa waay kan wuxuu kaa caawinaa jikada dhan hadda markii sas loogu walaaqo rooma inaad joogta u maleysaa yaa alaab yaro saliid olive oil iyo riixaan iyo kabsar u ekihi iyo jiis yar lagu soo shiida maasha allah look at this qurux suugada rasmiga la yaqaano waay insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysataan gabar dambe inaysan suugada ka halaabin oo gabdhaha biisiga ah wiilasha biisiga ah waa karsanaysaa baastada le u karsanee waxaa rabtid kalena waa ku cuni kartaa baastaa ku cuni kartaa bariisaa ku cuni kartaa waxaa rabtidaa ku cuni kartaa laakiin baastada ma wareereysid aan ku dhahay mar dambe ma dhahay suugada iga halaawda suugaan karinayo maase intaa karsato weel nadiif ah ku shubato oo qalalan talaajada leegale maalintaa isticmaalaysid qaado nadiif ah maasha allah kabsartii iyo waxaan ku darnaa hadda toontii iyo barbaroonigii waxaan suubinaynaa wax yara haddana dabooleynaa intaas inta isaga dib u dhacayso markay isku dubba dhacdo kama maasha allah kama dambeystii gebagabadii inaba caadi maaha iska fiiriya abbaa wix fool bilaayo adduunkaanayd isku soo daba dhaca suugadaada haddaysan saan ahayn wax badan kuuma ooleyso haddaadan si fiican u karin wax kastoo si fiican loo kariyey waqti badanay yaalaan maasha allah tabaaraka allah suugadii waatan waan dhadhaminayaa hadda inay cusbadeeda iyo xaaladeeda sidee tahay haddii cusbada dhag tahay waa intaa ku daray dhagdhag waaye haddii kale miyaa adiga dhadhanka intaa jeceshahay ani way igula yaraatay cusbo yar kalaan ku darsaday maasha allah tabaaraka allah wax kaloo lagu daraa male just inay wax yar sii huurto le waayo intaas lee ka dhiman wax kaloo ka dhiman malaha waa la daboolaa haddana maasha allah tabaaraka allah qaybta ugu dambeysaa la soo gaaray sheekada suugada way soo gabagabooday maasha allah waxaa u maleysaa cadcad suugadaada haddaysan saan u kala bixin iyo saliidda oo biyo markay dhash dhehayso badbadayso ee soo bixayso wax biyo camal eeg soo tuurto weli waayo waxaa u dhiman ilaa saliidda ee dhash kasoo siiso waxaa waaye waa karini le adi laakiin xaqiiqo waxaa ah muhiim ah in aad suubiso digsi adag dab qiyaas ah hadda waa kaas insha allah suugada saanay kusoo baxday beautiful wixii dhan isku tirmay waa kan baastadii markii lasoo korsaadana saanay noqotay iska fiiri abbaa inaba caadi ma ah
Hee, Roma maqaayad ku yeesha ma cunto ka cunuuna? Maya, gabadha Soomaali iidaa suubsan karto. Maasha Allah, tabaarakallah, how beautiful, beautiful. Oo baaste iyo suugadeeda iyo hilibkeeda. Hilibkaasna waa hilibka aad wada kasiiseen oo maasha Allahda ahaa la gaduudiyey. Dhinaca ka saaran saladkaaga yaraa saaranaysaa. Wow, look at this. Warle maa la wadaa? War ma la wadaa? Ee hala kariyo. Waa mahadsantihiin. Kheyr aan dhammaanin, nimco, barwaaqo. Hilibka iska fiirihee. Hilibkaaneeto ka sheekeen ma lah. Yah, in la cuno lagu fiican yah. Maasha Allah, tabaarakallah. Look at this. Baastada iyo hilibkaaneeto adduunyada hadda isku hesho. War maa la wadaa? Hee. Wallahi indhahaaga fagay dhahaan. Fag, 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 fag. Maasha Allah. Walaalihii waa mahadsantihiin. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen oo faa'iido idinkaga kordhay, especially gabdhaha shaqeeyo oo howsha kala wado oo hooyooyinka ah, busy-ga ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.